waxaan xusuustaa qiso Saciid ibn al-Musayyib oo ahaa nin caalima ee طالبkiisii ama ardaygiisii ayaa maalmo buu waayay wuxuu ku yiri xagee jirtay maalmahan kuma aragay wuxuu yiri xaaskaygii baa iga geeriyootay wuxuu yiri maxaad igu sheegi weyday waan ka soo qayb gali lahayne طيب wuxuu yiri marka ma guursatay maxaad keentay intii ka dambeysay xaaska wuxuu yiri maxaan ku guursadaa waxba ma haystee 2 shilin ama 3 shilin baan haystaa 2 dirham iyo 3 dirham طيب hadalkii markuu dhageystay wuxuu yiri waad guursan kartaa seen u guursanayaa wax ku guuriye madraadisid oo seen u helayaa wax ii guuriya wuxuu yiri kaale ana gabadheeda ku guurin meeshii la fadhiyay iyo booskii buu ugu meheriyay gabadhiisii wuxuu yiri gurigaan aaday gurigeygii baan iska tagay cunto badan muuna haysanin wuxuu haystay wax yar oo canjeera ama aan dhahno kimis ama canjeero ama muufo iyo saliid uu isku cunaayay wuxuu yiri anoo intaan guriga iska dhex fadhiyo xogaaga yar isku darsaday wadaadku ay ka jajaban tahay ayaan ba albaabka la soo garaacay waa kuma waa Saciid ke waan yaabay waxa igu soo xaadiray Saciid kasto magaalada jooga inaan xusuusto marnaba iguma soo xaadirin oo kama fikirin waa sheekhay gabadha ku guuriyay albaabka hadii aan furay waxaan yiri yaa sheekh maxaa aniga igu dalbi weydana ku imaan lahaay maxaad ugu timid wuxuu yiraahdaa lagu imaanaya bal u fiirso hadal la yaab marka wuxuu yiri gabadh baan ku guuriyay zawj baa tahay adiga oo caawa dooba inaad guriga seexato ayaan ila xumaatay waata gabadhaadii ee qabso gabadhii baba hadaan fiiriyayba wuxuu yiri waxa wadaadka daba taagan ba qof Ilaahay og yahay xaaladiisa quruxdeeda albaabka intuu gacanta soo qabto hore u soo galiyay muuna iska laabtay wadaadka wuxuu yiri waan booday wixii aan cunayay waa waxoogaa yaroo saliid lagu cunayo lagu daardaaranayaa u yaala waa ninka dhan oo gabadha loo keenay horta wuxuu yiri waxaan qariyay cuntadii sayna gabadhu u arag cuntadii baan hore u asturay waan qariyay kadib baa intaan guriga koray oo meel tagay baan daaqada dirishada qori ayaan ka tuuray dhagax derisku u tuuraya wuxuu rabaa baad u malayn wuxuu leeyahay wariisoo gurmada iisoo carara markii albaabka lagu soo gargaar maxaa dhacay wuxuu yiri maanta Sheekh Saciid baa gabadhii guuriyay طيب hooyadii baa maqashay waxay tiri gabadha taabanin ilaa aan ku imaato hadii aad taabato waxa way aniga iyo adiga waan kala tagaynaa wiilkeedii waxay rabtaa gabadha inay u soo hagaajiso gabadha waa in la soo diyaariyo wuxuu yiri hooyo gabadhii baan ku wareejiyay 3 habeen kadib bay ii keentay 3 habeen wadadku waa rafaadaan filayaa marka 3 bari kadib bay keentay yiri hadii la ii keenay waxaan helay inay tahay ajmal an-nisaa wa ahfadha an-nisaa li kitaabillah wa qofka dadka u qurxan وانا قفك كتابك إلهي وحفظ الله أكبر بدون مهر شلن مديب بركضو كاسي كوجرته